mid ka mid ah beelaha dega Puntland ayaa magaalada Qardho ay ku qabteen waxa ay ku taageereen howlgalka ciidamada difaaca Puntland ay ka wadaan Buuraha Calmiskaad. shirkaan oo ay hogaanka dhaqanka ee gobolka Karkaar Buddig u ahaayeen ayaa lagu taageeray hogaanka sare ee dawladda Puntland ee uu hogaamiye madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. waxa ayna ku dhiirigeliyeen inay qaateen go'aan adag oo ay kooxdaasi kula dagaalamayaan. shirka ugu horeynta waxa furay Islaan Maxamuud Cilmi waxa uuna u mahadnaqay ciidamada difaaca Puntland. amniga Puntland ayuu xusay in difaaciisu uu sidoo kale muqadas yahay. waxa uuna xusay waxaan u hambalyeynaa oo u mahadcelinaynaa hogaanka dawladda Puntland oo runtii si geesinimo leh oo odaynimo leh oo xilkasnimo leh isugu dubariday hawshaas iyo cadawga halka inoo fadhiyay oo ganacsatadeenu ay ka shaqaysan kari weyday oo dadkeena iliidka ahaa oo waxgalka ahaa ay dalka ka carareen cabsi darteed waxna laayay waxna dalka ka carareen wixii rabay inay shaqaystaan ay ka shaqaysan waayeen oo ay dhibaato u geysteen oo baad inay dadka ka qaadan ku soo rogeen cadawga halka muddada inoo fadhiyay oo inta kobcayay oo meel kasta isaga yeertay oo dal kasta oo dhibaato ka jidho oo ay ku nool yihiin dad wadanka dambiye ka galay isaga yimi oo isaga yeertay oo buuraha halkaas inoo soo galay maamulkii iyo hogaankii keen isugu dubariday inaynu inaga Puntland iska qabanno oo la diriro. runtii qodobka koowaad waxaan ugu mahadcelinaynaa hogaanka Puntland madaxweyne iyo ciidan iyo saraakiil iyo xukuumadda kulliba waxaan leenahay aad u mahadsantihiin. runtii qaar ka mid ah ismada dhaqanka waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada ee munaasabadan ka soo qayb galay ayaa tilmaamay oo aynu isugu nimid oo wada hadalay hadal ma harin dhowr iyo 20 oday oo nabadoonniyay simanaba hadashay waxayna ku hadleen wixii wanaagsanaa wax yar baa iska haray jannada calmis laga helay oo Falastiin laga waayay waxaad aragteen ay ka dhacayaan oo waxaad aragteen saqiir dhibta loo geystay haddaan maanta dhaqaalaha haysto naftayda uu hubeen lahaa Falastiin baan aadi lahaa annagoo ah odayaasha gobolka Karkaar degmada Qardho qaybo ka mid ah waxaanu waqti adag baa lagu jiraa oo jiilaal ah fursadu way ogolaan weyday mar walba in la ishelo la isu wada yimaado si buuxda waxaanu halkaan marka ku taageeraynaa dagaalka halka ka socda oo sida lixaad leh u dhacay oo mayalka adag oo ilaa heer madaxweyne Puntland ku wajahan heer madaxweyne ilaa ciidamada inta u dhaxle ilaa ummadda la shaqaynaysa oo iyaduna ama taageeraysa ama hawsha wax kaga jidha waa ku taageeraynaa way mahadsan yihiin. shacabka Puntland baan la hadlayaa midna Soomaali baan la hadlayaa shacabka Puntland waxaan leeyahay intaan oo odayaashii magaalada Qardhooda oo ismadoodii oo nabadoon leh oo islaan leh oo wax walba leh islaam leh waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay dagaalka Daacish la dirirayo oo ciidamada Puntland dawladda Puntland ay la dirirayso inaynu isgarab taagno maanta halakan oo maanta oo 2025 bishii labadeedii waxaan ku qabanay annagoo ah duqeydii waxgaradkii gobolka Karkaar ahna degmada Qardho inaanu taageero dagaalka ka socda Daacish kula jiro dawladda Puntland iyo wixii kale oo taageeraya meelka dal iyo dibad. waxaan leeyahay ciidamada ka dagaalamaya Calmiskaad oo reer Puntland waxa ay guuleysta mar labaad iyo mar saddexaad mar waxa guuleystaan leeyahay waxaan leeyahay garabkeena soconaya geeshay uu guuleysta ma fi mar waxa idin kala haribmayno meesha cilkaas joogo waa meelan baabuurta marin waa meelan geelu marin waa meelan dadka lugtaahay oo tabarta yari marin
meeshaas meel sidaa loo degay bay ahayd waxaana loo degay waa Puntland in lagu qabsadaa loo degay muddo badan baana magaraysa meeshaas lagu soo gurmaayay dadkii meesha ku soo gurmaayay nooc walba waa leeyihiin ajnabi iyo dadka dhulka u dhashayba laakiin ajnabiga badan baa la leeyahay waa u ducaynayna waxaan leenahay guuleysta 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 waxaan oranayaa waa jihaad ma aha dagaalka hadda socdo buuraha ka socda ma aha dagaal laba dawladood ma aha dagaal laba qabiil waa niman ku soo duulay nafta iyo maalka iyo dalka Puntland Soomaaliyana ka jira oo dhul badan jooga waxaan leeyahay ka guuleysta Ilaahay idinkiis xabadooduna hadinkaas ma dho Ilaahay idinkiis daayo in ku taageerayno waa salaamayna salaan ka bacdi duco iyo waxtar baa layna ka rabaa ducadu waa u tagaysaa laakiin waxa la rabaa reer Puntland haddana nahay reer Karkaar inaan garab istaagno dawladda iyo ciidanka albiskood ka dagaalamaya oo hanti iyo ducaba in ku taageerno inta markii aan iraahdo dagaalka face baa tagay face kan labaad dadka iyaga shibilka ama odayaasha ama shacabka awal ciidanka dawladda yahayd iyo shacabka taakuleyntiisa waxaan ku soo darsanaynaa haddii dagaalku sii adkaado wax la yiraahdo ciidan baan u geynaynaa saadkii hore oo xoolahaana way soconayaan annaga oo ah gobolka Karkaar degmadan Qardhoona waa naga diyaar haddaan gacanta kula jiraa kuwa horena wuu horeeyay dawladda Allah guuleeyo iyo ciidamada iyo intii ka qayb qaataba guul Ilaahay gacantooda ha saaro maxaa yeelay inagoo muslimiin haddaynu u ducayno oo dadka ayna ku soo duulay ajnabiga iyo wax walba leh oo naf iyo maalkeena doonaya inaynu iska dhicino oo rageenu maanta ka hawlgalo aad iyo ducadaynu u ducayna waa gaaraysa awalaha ducada horta waa leeyahay ragii iga horeeya hadalka wax badan ka yiri taageerida iyo ducaynta ciidamada Puntland iyo dawladda Puntland Daesh la dagaalameysa buuraha saaran kuwaas oo inaga difaacaya baynu waxaynu u nahay hiiliyahooba inaynu la garab istaagno dhammaanteen dal iyo dibadba in aynu isu wada taagno reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ficiladii ay reer Karkaar geysteen waa garanaynaa oo naf iyo maal baahayd dawladana qayb bay ka yihiin gobolkii ugu horeeyay oo ka jawaaba oo jawaab ka bixiyana horta Karkaar buu ahaa haddeerna maanta waxaan isugu nimi intii hore aanu ka qayb qaadanay inaanu ka sii xoojino haddaanu gobolka Karkaar nahay nin walba meesha uu ka leeyahay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh raga ka soo qayb galay waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nin walba meesha ka leeyahay kala tilmaami kari maayo hebel iyo waxa rag hore yiri magaca guud waxa weeye nin walba meesha ka leeyahay salaantaas baan u gudbinayaa ciidamada Puntland iyo ma hawsha ay ka wadaan arrimaha dagaalka aad iyo aad baan u taageeraynaa naf iyo maalba waa la garab taaganahay madaxweynahana waxaan leenahay hawshaas aad qabateen aad iyo aad baad ugu ammaanantihiin annaguna waa soo dhaweynaynaa waa ku kalsoonahay naf iyo maalna waxaan rabnaa inaan ka qayb galno haddii Ilaahay idmo horena waa ugu jiray